dalada guud ee garabka dhalinyarada Hoodale ayaa waxa ay deeq direyska lagu ciyaaro ah ku wareejiyeen 70 kooxood oo ka kala dhisan degmooyinka ay ka kooban tahay caasimadda Hargeysa. deeqdan ayaa madashii lagu wareejinayay waxa ka soo qayb galay xubno kamid ah dalada guud ee garabka dhalinyarada Hoodale waxaana madashaasi hadal kooban ka jeediyay gudoomiyaha garabka dhalinyarada Xasan Gole waxaana hadaladiisii kamid ahaa isla markaana aan noqon doonin aan qalabkan aan siinayna ama dhalinyarta markii ugu dambeysay anagoo qorshaha ka yahay oo talagalay dhalinyarta inay u noqoto dhiirigelin, inay u noqoto motivation, inay u noqoto dhalinyaro dalkooda iyo dadkooda wax ka bedeli kara insha Allah. ka dhalinyar ahaan waxaan u garanay anigoo ku hadlaya magaca dalada guud ee garabka dhalinyarada Hoodale inaanu dhalinyarta guddoonsiino qalabka isboortiga insha Allah. waxaan rajaynayaa labaad iyo saddexaad dhalinyarta ka caawin doono wixii tuseeya xagga isboortiga iyo horumarka dhalinyarada Hoodale ay go'aansatay in dhalinyarta Hargeysa qaybaheeda kala duwan ay guddoonsiiso qalab isboorti dhalinyartaas oo tiradeedu noqonayso 70 insha Allah. waxaan rajaynayaa inuu ka sii wadi doono oo aanay noqon doonin markii koowaad isla markaana qalabka isboortiga dhalinyarta u noqonaya dhiirigelinta iyo in dalkooda horumar buuxa u soo jiidaan inaanay noqon doonin markii koowaad iyo markii labaad toona mar walba aanu dhalinyarta aanu garab taagnaan doono wixii awoodeeda insha Allah.